حميدان التركي وحو هنين سعوديانا وحو كتك دلكاس السعودية وحو نربي لبضي كن يكودي وحو آذي أمريكا لغة إنجليزكا أيو براني أيو كتخصصي وحو ربي مركا إنو صار ماسترتو ماستر إساقا إي حاسكيسا إي عرورتيسو دمانتو دوحي آذين أمريكا waxaa u shaqeynayso marka guriga u joogtay gabadh Indoneesiyaana gabadhaas Indoneesiyaanka guriga u joogtay baa 2004 soo dacweysay oo dacwada ay ku soo oogtay waxay tir mushaharkii baa la ii diiday mushaharkii baa la iga dib dhigay ninku wuxuu igu sameeyay xadgudub dadkani way i jir dileen yaani dambiye fara badan bay reerka ku soo oogtay ninkii Xumeydan haba hadaba la soo qabtay maxkamad marka la soo taagay Xumeydan waxyaabaha gabadhani ay ku soo eedeynayso dhan uu inkiray wuxuu waxaan waxba kama jiraan sababtoo gabadhan wax cadayna haba yaraatay ma hayso mushaharkeeda waa siinaa cid oo si ama jinsiyana ama si jismiyana ugu xadgudubtay ma jirto wax dhibaato aan u geysanay ma jirto ninkii hadaba 2006 waxa ku dhacay xukun Xumeydan aha 28 sano lagu xukumay marka la xukumay marka waxa la xukumay isagoo wax cadayna hal xabo cadayna hatta gabadhaas shaqaalaha Indoneesiyaanka ayna keenin kaliya waxay tir ninkan mushaharkaygu dib iiga dhigaa dhibaatooyin kale igu sameeyay baasaboorkaygu iga qariyay baasaboorkeedana waxa la ogaaday gabadhan markii la helay fiisihii wadanka ay ku joogtay inuu ka dhacay oo lawyerkii ninkan Xumeydan u dooday uu soo saaray fiisuhu inuu ka dhacay 2001 inuu ka dhacay xilliga gabadha ninkan ay soo dacweynaysay la baasaboorkaygu iga qariyay mushahar buu ii diiday wuu igu xadgudbay waa 2004 ninka Xumeydan ha maxkamad baa lagu soo oogay isagoo wax cadayn iyo wax daliil midna loo haynin baa 28 sano lagu xukumay 2011 marka la marayo baa wuxuu bari ka noqday xadgudubyadii gabadha ay sheeganaysay qaar kamid oo xadgudubkii ay lahayd wuu xoogay wuu farxumayba ku jirtay dacwada farxumayntii bari buu ka noqday waxa la yiri ninkan gabadha muu farxumayn 2011 hadaba xukunkiisii waa la qafifiyay 28 sano aha waxa loo bedelay 8 sano 8 sano kadib markay 8 sano u dhamaatay marka xabsiga inuu ka soo baxo Soomaa ahayn meesha inuu dulmi ka jiro iyo cadaalad darro sanadba sanad baa dib loogu sii dhigay sanad baa dib loo sii dhigay markasta dib baa loo sii dhigay 20 sano xabsi ku jira Xumeydan 20 sano laga soo bilaabo 2004 markay gabadha dacwada ku soo oogeysay 2006 markuu xukunku ku dhacay ilaa 2011 oo markii xukunka laga qafifiyay 8 sano looga dhigay 8 sano way dhamaatay xabsigii maba ka bixinba ilaa laga soo bilaabo 2004 marka ilaa 2024 baa xabsi ku jiray ninkaas marka uu yimiday wadankiisa uu sujuud buu la dhacay wuxuuna sheegay dulmi inuu ku xirnaa wuxuu sheegay 20 sano inuu wadankiisa iyo ehelkiisa iyo qoyskiisa uu kaga maqnaa dulmi oo xabsiyada Ameerika iskaga jiray 20 sano ninkan inuu dulmi ku xirnaa waxyaabaha ku tusinay waxa kamida 2011 baa xukunkiisii la khafiifiyo 8 sano laga dhigay markii la ogaaday gabadhii waxay sheeganaysay waxyaabo badan inay been ka yihiin marka 8 sano ay u dhamaatay in la soo daayay ahayd 8 sano way u dhamaatay sanadka kale la soo deyn doonaa sanadka kale sidin sanadba sanad dib loogu dhigay ninkii 20 sano xabsi ku jira qof lagu xukumay 8 sano markii hore 28 sano lagu xukumay markuu dhowr sano xinaaba xukunkii la qafiifiyay 8 sano markay u dhamaatay xog inuu waxay ahayd oo xabsiga ka soo baxay Soomaaliya 20 sano buu ninkaas xirnaa isagu marka hadda wuxuu aaminsan yahay uu sheeganayaa 20 sano inuu dulmi ku xirnaa sababta wuxuu gabadha lacagteedana waan siineynay sharcigeeduna wuu ka dhacay 2001 fiisa ay wadanka ka joogtay ku dhacay kadib waxaan anagu u garanay buu sidaas inay noolo joogto inoogu sii shaqeyso si oo qaanuunka wadanka khilaafsan maxaa ku watay yaa yiri asxaan u sameey qof uuna garanayn gabadhii say u joogteen bay waxay go'aansatay marka reerkan inay dacwad iyo dambi ku soo oogto dacwadii dambiga ay ku soo oogtay marka kufsi baa ku jiray kufsiga inuu beenaha la soo xaqiijiyay 2011 saas ay tahayna 20 sano ayuu Xumeydan wuxuu ku jiray xabsi ilaahay oo dhibdhaam isagoo weynaaday oo gaboobay oo gadhka timi cadaadeen oo qof weyn oo wadankiisa dib ugu soo noqday si wanaagsan baana loo soo dhaweeyay wuuna sujuuday airportku ku sujuuday saas wadankiisa markuu intuu cagaha u soo dhigay uu is arkay magaaladiisa inuu joogo ayuu sujuuday ilaahay qof kasta oo dulman oo dulmi ku xiran xoriyadiisa u soo celiyo